munaasabadu soo qaban qaabiyay fanaanka weyn ee Maxamed Maclow Nuur oo loogu baroodiiqay Allah u naxariistay fanaanada Khadiija Dalays ayaa lagu qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Munaasabada waxaa ka qayb galay fanaaniin iyo wariyaal ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaana ay u dhacday sida tan. Dalays waxay wadaniyad ana ma jirin marka ay dhahayso Jamal ba wawsaga cadowga jabiye jeliilo anagana jidnoo bixi واحد قف ودن كجعل عيد كجعل قف واحد كرتله نور واحد قف دتك هدي واحد عنده أهرت وحاس أنت إن وحن ليلوبي كريم مركا إله ونحرسته خبرك هذا واسع عقد دقة جنة الفردوس على حنا وذا كل مية إن أنا جارحان بدون هاي مهم ما أقول كنت ولي أسوبي ما يحب عندك تاريخ وأدونا يتبناك شنتي مركا أنا خبرش حتى بدون كديارني ريشة كستونو دي ما هنا ما يفضلنا إني بدون كدونا تاريخ فعلا صوبنا مركا وحلاي الله ونحرسته فامل كاسوفي عبانو أخيني أفر بيك كوبنا ينسطح قبله فاضل عاشة آمنة إيو متقنا خديجة يا ورسمة عبد الله عمي واتقنا أنا مالينيا نين إسكاشتوين كجوج جري مركب قدام بيسي أنت أنا ودك قدامين مركب وحوي هذا المشن لو ما بانا هذا الهراء لو يري تاريخ ولا شيء وحول ولا شيء إلهي وحنوق برين خديجة عبد الله عمي دلايس إلهي وحنو قبرينا نحرستي جنة إن الله جيو كتاب كذا جامعة إلهي مدكت إنه أصاره مرتلة عليا إن إلهي وقدره إلهي وقبرك إنه النور قيامها إنه الشفاعة أنا أنت كبرني والسلام عليكم. هل كنا وحن تعسي وقدريا لبدي يويل وجبريل وهريو يويل كذا كرستي يومد الصومالية دمان يفنانين تدمان. magaca fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan halkan tacsi soo gudbinayaa dhamaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay maama Khadiija Cabdullaahi Dalays waxay ahayd qof aad iyo aad u naxariis badan iska dhaafay bilo aadnige gurigeeda waxa ku noolaa xayawaanka Soomaali oo dhan bay ka dhimatay walaashay waa ku raacsanay calanka in hoos loogu dhigay waa ku raacsanahay waa istaahisha waa mudan tahay inta ay ka dhimatay wiilkeeda waxay la dhashay arintu way ka weentay wiil iyo waxay la dhashay waxay taagantahay Soomaali weyn oo dhan bay ka dhimatay marka maanta waxba noogama baahna waxay nooga baahan tahay inaan u duceeyno arintii ilaa galabtii xamar laga hadlay baydhabo laga hadlay dawladda Soomaaliya hadlaysi madaxweynaha farmaajo hadlay khayr hadlay laakiin ma suurtagelin waxaas dhaqday calafkeeda in lagu duugo magaalada Toronto